caasiga safkii hore oo 4 kursi iyo kan ku xigo dadka fadhiya dhanna madax kuma oolin hal qafood oo madax leh oo caadi ah waa waaye gaari caasi oo jidka maraya gaariga caasiga oo jidka maraya ahaa marka dadkii saarnaa madaxii ka wada gaar caasiga safka hore kuraasta hore oo la fadhiisanaa 3 4 4 ah 1 iyo 2 labada saf isku xigto hal qafood madax laheed ma leh gaarigan soo dul istaagay marka nina marka cimaamad guudan wata telefoon inta u saarnaa asagana saas macnaa dadka ma dhicin sidii u fadhiyaan saasay u fadhiyaan madax bis ka go'an waxa ka go'an madaxa bis ninka telefoonkiisa dhacay telefoonkiian qabta marka aaba gabar tir asanda aabaha Allah u naxariisto intee saxafiyaan dhah telefoonkiian soo qaaday nin hadda oo nabad sugid ah oo dhar cad ahay oo magaciisa aan aqoon laakiin wajigiisa aan aqaano aan telefoonku u dhiibay marka aniga laabyada iyo luuqyada saraak askarta badana waxay ka cabsanayaan qarax saddexaad ay ka cabsanayaan qafka u tag aan soo kan badbaadi kan waa darnaaha marka waxaan isleeyahay nin yani oo hadlay ama fadhiisanay ama ka caawin u baahan qaad laakiin qaf nin waxaan arkay laba lugood ka go'an war waxaan arkay nin asiga dhan inta shiilmay wandream ya shino waa qoys xanuun badan iyo maalin murugo badan ninkii aqligiisa oo siiyay dad dhan mujtamac dhan jid maraayo inuu janno ku galayo ninka qalbigiisa oo siiyay kaas waa ibliis waana doqon ilaahayna waxaa waa ciqaab oo mutaysan doonaa jihaadka lagama raadiyo dadka maatada ah oo shacabka ah oo jidka maraayo lagama raadiyo jihaad waxaan marka u sheegaa nimanka waxyaalahaas ku hoolan oo habeen iyo maalin ka shaqeynayo ilaahay cadaabkiisa sugayaan haddii ilaahay diinta oo noo soo diray oo nabi maxamed noogu soo dhiibo xaqa ah haddii ay ka leexdeen dhibaataday dadku u geysanayaan ayaga aabe ee leedahay aniga hadda ninaa dhib ii geystay maanta maxkamad kama dacwii karo oobi ma geli karo ma ku mudaaci karo ma qabsa karo ma aqaano asaa naftiisa macnaha halige